السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan saxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada ku talagalnay waa barnaamijkeena habeenimo sabtiga axad soo galayso taariikhduna waa 15 bisha Agoosto 2026 barnaamijkuna waa kii saddexaad ee aan idin soo gudbinayno maantay qodobo muhiim ah oo soo kordhay ayaynu barnaamijka idinku haynaa Iiraan oo ku tiri qadar saddex duuliye oo aad naga haysaan nasiya iyo qadar oo afka furatay oo leh duuliye Iiraan oo aan gacanta ku hayna ma jiraan xaaladu faraha ayay ka sii socotaa maxay sameyn doontaa Iiraan sideese ku ogaatay Iiraan duuliyaal iyada ay diyaaradaheeda wadayay inay markaa qadar hayso oo ay xabsi ugu jiraan haddaba warar cajiib ah oo soo kordhay caawa xiisada gobolka bariga dhexe aynu barnaamijka ku faaqidi doonaa waxaa kale barnaamijka aynu ku soo gudbin doonaa weerar cusub oo ka dhacay mar kale dalka Yemen xootiga iyo kooxaha ka soo horjeeda oo dagaal culus ay dhexmareen wararkii ugu dambeeyay waa idin hayaa iyo Iiraan oo markii ugu horeysay ka hadashay xiisada ka soo cusboonaatay koonfurta Lubnaan ugana degtay Israa'iil xiisadaas inay markaa joojiso weerarada ay ku hayso Hezbollah haddaba wararkaas iyo xaaladaha guud ee Lubnaan waan idin hayaa qodobadaas aynu barnaamijkeena saddexaad ee caawa ku soo qaadanaynaa inta ku jirnana wixii soo kordhay waan idin la socodsiin doonaa warar waaweyn oo soo kordhay bariga dhexe ayaynu barnaamijkan ku faahfaahin doonaa haddaba waxaynu ku bilaabaynaa qadar iyo Iiraan oo meel xun ay ka joogto caawa maxaa dhici doona wararkan iyo waxa ay ka bilowdeen sheekadan ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa haddaba marka ugu horeysa wargeyska la yiraahdo Asharqul Awsad ayaa wuxuu ciwaan uga dhigay Iiraan waxay dalbatay in la sii daayo saddex duuliye waxayna sheegtay in ay qadar haysato duuliyayaashaas kadib markii diyaaradahoodii ay ku burbureen dagaal dhacay bishii Maarso xilligii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca iyo Iiraan oo dhinaca mas'uuliyiinta Iiraan ayaa sabtida maanta ah dalab rasmi ah ka gudbiyay oo sheegay in la sii daayo saddex duuliye oo ay ogaadeen in lagu qabtay oo ay qabatay qadar intii lagu jiray dagaalkii bariga dhexe wakaalada wararka Iiraan ee Faris oo soo xiganaysa mas'uul sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxa uu sheegay in ninkaasoo ah madaxa guddiga baaritaanka dadka maqan ee ciidanka qalabka sida Iiraan isagoo sheegay in saddex duuliye oo Iiraaniyiin ah lagu qabtay qadar iyagoo nool kadib markii diyaaradoodii ayuu yiri oo nooceedu ahaa Sukhoi 24 ay ku burburtay dagaalkii ay la gashay ciidamada Mareykanka warqad uu u diray guddiga caalamiga ee laanqayrta cas ICRC ayuu mas'uulkan Iiraaniga ah waxa uu ku sheegay in ay ka maqan yihiin saddex duuliye oo uu magacyadoodu warqadda ku xusay waxaana uu sheegay in muddo 6 bilood ah qadar ay gacanta ku hayso duuliyaashaasi reer Iiraan haddaba waxa uu ugu baaqay hay'adda ICRC inay booqato duuliyaashaas oo ay soo ogaato xaaladooda nololeed iyo midda caafimaad degdegna loo sii daayo oo dalkooda lagu soo celiyo haddaba militariga Iiraan ayaa bishii hore ku dhawaaqay inay soo heleen meydka duuliyihii Iiraan isaguna kamid ahaa dadka la laayahay kaasoo qadariyiintu ay markaa wareejiyeen waaye marka sheekadana marka soo bilaaba qadar waxa leeyahay saddex duuliye haystaan nasiib diyaaradda 4 duuliye laba diyaaradood ay ahaayeen Sukhoi 24 GPS la'aan duuliye dhulkay ku socdeen waxay soo duqeynayeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay qadar diyaaradii marka way dhaceen laba la socotay laba duuliye hal duuliye oo dhintay meedkiisa kaliya badda laga helay tiri qadar kuwii kale waa la laayahay Soomaa waxaan soo ogaanay tiri Iiraan qadar ina saddexdii duuliye haystaan gacanta noo soo geliya war ma rabnay
hay-adda ICRC-na waa la wargeliyay waxaa la yidhi duuliyaasheena way nool yihiin qadarana haysa waana ogaanay hala soo fiiriyo caafimaadkooda hana naloo soo daayo haddii la soo dayn waayo qadar ay ka dhaga adeegto maxaa dhacaya dukum daakum aa laga dhigayaa qadar meeshaan waxay soo dhacay bale markii warkaas marka uu soo baxay warku dee war sahlan ma aha war weyn waaye dadka aad naga hayso noo siidaa haddii kale waa ku qararamsanayaa meel loo raaca male qadar waray soo saartay idana haddaba markaan idin tuso warka ay qadar soo saartay haddaba qadar iyaduna goor dhoweyd war degdega aljaziira lagu baahiyey waxaa la yidhi wasaaradda arrimaha dibadda ee qadar waxay si cad u beeninaysaa eedeymaha ku saabsan inay qadar xirtay duuliyayaal reer iiraana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee qadar waxaan si cad u beeninaynaa eedeymaha iiraan ka soo yeeray ee ku saabsan in duuliyayaal reer iiraana qadar ay hayso oo ay gacanta ku hayso oo xirtay haddaba kooxaha raadinta iyo samata bixinta qadar ayaa si buuxda u guda galay waajibaadkoodii markii diyaaradaha iiraan ay burbureen kadibna way waayeen marka laga reebo hal qof meydkiisa oo la helay kaasoo ay sheegeen inay soo saareen saddexdii kalena la la'yahay dowladda qatar ayaa la xiriirtay xilligaas dhinaca iiraan si ay isugu dubariddo wareejinta markaa haraaga meydkii lasoo helay iyadoo la raacayo qodobada quseeya sharciga bani-aadanimada caalamiga ah dhanka kale qatar waxay sheegtay inay casuumaad u fidisay in markaa ay yimaadaan oo dalkeeda soo booqdaan iiraaniyiinta si faahfaahin looga siiyo howlgalladii raadinta ee ciidanka ee qatar ay ka samaynayeen badda meelihii ay diyaaradda ku burbureen qatar marka afkay kala qaaday waa qaylinaysaa waxle war annaga warduuliyaala adinka idiin dhashay ma hayno diyaaradihiina baddaasay ku dhaceen waa raadinay hal meydaa soo helnay meydkiina waataan idiin soo dirnay saddexdan kale aa sheegaysaa waa nool yihiin ma noola ma hayna bay leeyihin badday ku maqan yihiin imaada aynarinala arka wixii waa imaan weyseen marka hadda maxaana la ku eedaynayaa iiraan meelay ka soo ogaatay lama yaqaanee xogta ay heshay lama yaqaano waxay leedahay waa haysaane gacanta noogu soo shubay odhayaada xaalku marka caawa halkaasuu taaganya waa haysaan iyo ma hayno adiga meel u dhig waa kaas saddex duuliyaa naga maqan laba diyaaradood noocoodii Sukhoi 24 oo dhacay bishii Maarso markii Febraayo dagaalka bilowday Maarsay weerar qaadeen baday ku dhaceen wadna sooyina saddexdii ma hayno adikeedii taala ICRC maxay aadayeen ma bahaynay leeyihiin qadar marka xaajo halkaasay maraysaa marka xaaladdu halkaasay marka maanta joogtaa marka sheekadaas wixii kasoo kordha barnaamijyada dambe kula socodsiin doonaa dhanka kale iiraana war laga sugay maanta israa'iil soo weerar inta qaaday sarkaal sare oo xisbullah ma dilin xisbullah soo caawa lagama baqayo iyaguna inay weerar ku asqaysiiyaan israa'iil adduunkii oo dhan soo ma wada qaylinayo war xabad joojintii hala ilaaliyo soo laguma hayo israa'iil soo difaac ma gelin iiraana marka soo hadashay anida tuso marka iiraan warkeeda iiraan waxay sheegtay inay tahay in xabad joojinta in la joojiyo weerarada cadowtinimada ah ee xadgudubka israa'iil ay ku hayso koonfurta Lubnaan waxaynu u sheegaynaa inay daruuri tahay in weeraradaas cadowtinimada ah la joojiyo oo lagu hayo israa'iil ku hayso koonfurta Lubnaan waxaan sidoo kale israa'iil u sheegaynaa inay degdeg uga baxdo goobaha ay ka qabsatay koonfurta Lubnaan haddii kale yaa weylak waay waa soo galaynaa waa dagaalka haddaa waxaan aad samaynaysaan ma maqnin annaga waa idii jeednaa waa inaad joojisaan koonfurta Lubnaan waxa ka wadaan xabad joojin ma jirtee howlgalladan cadowtinimada aa bilowdeen joojiya maanta waa laisla qaybiyey israa'iil waxay leedahay mas-uuliyiin xisbullah ayaan dilin dowladdii Lubnaan waxay leedahay dad shacab oo caruur ku jirtaan la laayay marka koonfurta Lubnaan iyaduna sheekadeedu waa qasan tahay waataan barnaamijkii labaad ku soo qaadanay xisbullah inay qoryahooda cabaysteen oo ay yiraahdeen wallahi ka tahay inaan daynayn waa argoosanayna argoosigii marka waa la sugayo kule caawa la qiyaasaya wixii soo kordha waa arki waaye qaybta ugu dambaysa ee barnaamijka warka waxaynu ku soo qaadanaynaa
dagaalka Yemen xuutiyiinta maalmahan waxay nagtu ku hayeen dekad leeyahay al-Mukha oo ku taala meel ku dhow Bab al-Mandab 35 kilomitir waa mid dekadan ka hadleen dekadii maamulaheedu wuxuu yiri gabi ahaanba dekadii shaqadii way joojisay khalaas ma shaqaynayso koow lacag 16 milyan oo dollar aan waa khasaartay wixii meesha yaalo ku gubtay xuutigi waa loo kala cararay dekadii xuuti maxaa u dhiman inuu dekadii aado dhanka kalena waxa leeyahay meel leeyahay Ma'rib ayuu hadana nagta ka saaray xuutiga caawa ilaa Maghribki marka asagana waxa leeyahay Xudayda iyo meelahaas isaguna laga duqeeyay marka Yemeniyiinta dhexdoodii joogta isku hayaan marka aanada tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wakaalada wararka Anadolu waxay leedahay Yemen waxa ka soconaya duqeymaha xuutiyiinta waxa sidoo kale la sheegay inay joojiyeen duqeymahaasi shaqadii dekada al-Mukha qasaaro 16 milyan oo dollar ayaa dekada soo gaaray haddaba maamulaha dekada al-Mukha ninka la yiraahdo Cabdimalik al-Sharci ayaa sheegay goor dhaweyd in nashaadkii iyo shaqadii ka socotay dekada iyo ganacsigiiba dhammaan ay joogsadeen kadib markii xuutiga weeraradiisa ay markaa baabi'iyeen waxyaabo badan oo shaqadii dekada la xiriiray waxaana la sheegay khasaaraha maadiga ah ee soo gaaray halkaas khasaaraha halka ka dhashay inuu gaarayo sida uu yiri 16 milyan oo dollar inuu gaarayo ayaga isbaabiinaya Yemen waa loo tuuray xuutiga meesha uu baabi'inayo nagta ku ay Yemen kala waay Yemeniyiin kale dekad kale oo Yemen leedahay oo joogta ku ay ayaguna xuutiga garaacayaan xuutiga awal meelahaas uu ka qaraaban jiray Israa'iil uu joogta ku ay meelahan kale Sacuudiga iyo joogta ku ay hadda niman meeshaana inta contract la soo siiyay waxa la xuutiga ka saara meesha mana ka saari kara xuutigi marka ayagii marka Everest ka dhigay hadda waa la iska raacaya marka xaajadu halkaas maraysa way maqli jirtay labadoodii waa la isku tuuray marka hadda waa loo taraarixiyay Yemeniyiinta joogta isku hayaan hadda dhaga iska garaacayaan maxaa idinka dhiman drones hoo ay leeyihiin xuutiga le mar naga musiye xuuti ma sidaas ku haray weesha xaaladdu waa xogta wixii warar soo kordho isla socon doona barnaamijkayga caawinaad khiyaaray waa naga intaa la garay oo share garay barnaamijka fakarkiina aragtidiina waa muhiim intaan markale kulmayno waxaan idin xasuusinayaa barnaamijkii labaad iyo kii koowaad aad ay u xiiso badnaayeen dadka aan daawan iyaguna inay daawadaan nabadgelyo